tii koobaad meeshaan inoo maraysa midkan wuxuu taagan yahay adiga waxba ma ogid mar dhow aniga iyo walaasha waa isguursanaynaa teeda kale maanta waa maalintii kugu dambeysay oo shaqada lagu tijaabinayay ha ka walwalin anigu waa dadaala midka booskayga waxaan ku cadaadinaa inuu adiga ku qaato laakiin isla markii meesha waxa soo gaaray midkii booska ah wuxuu dhahaa arintaas ma loo baahno ninkan yarka xirfadiisa waa ka helay waana qaatay iyadoo hadalkaas markii ay maqasho aad ugu farxaysaa midkan meeshii isaga taga mar kale labadooda oo banaanka u soo baxay si ay u sheekaystaan midaan is iloobaysa waxayna bilaabaysaa inay sida dumarkii u dhaqanto kadib midka shaqaalaha intuu midaan ka shakiyo wuxuu ku dhahaa iga raali noqo waxaan u baahanahay inaan baxo haddana isagoo jooga gareeshkii u imaanaysaa si ay ula sheekaysato laakiin isagu sidii hore ula sheekaysan jira mula sheekaysanayo maalina wuxuu go'aansanaya inuu gurigeedu ku soo booqdo iyadana waa tanahay albaabkii ka fure iyadoo naxsano wuxuu weydiinaa gudaha ma soo geli karaa iyadana madidiisa way u ogolaane wuxuu ku dhahaa walaalka aaway hadda inta baxdid orad iigu soo wac waxaan rabaa adiga iyo isaga inaan si wada jira idinkula hadlo intay soo kacday waxay iska dhigaysaa qof u soo wacayo laakiin waa tana iyadoo rabta inay gashato dharkii ninka midkan maadaama uu shaki badan ku jiray ma fidhinayay wuxuu go'aansanaya inuu soo fiiriyo iyadoo labiskii dhammaysan rabta oo keliya koofidii garkii u dhimiyo qolka ugu soo gala wuxuu ku dhahaa waa ogaa inay arrintaa dhacayso ee keliya waxaa samaysaa inaadan imaan meesha shaqada iyadoo meeshan murug la fadhisaa ayaa hooyadeed oo guriga bannaanka uga maqnay dib ugu soo laabane waxay ku dhahaysaa iga raali noqon sidaan inaan ku dhaha ma rabin laakiin waa ogay arrintan inay laba goorba fashilmayso laakiin ha ka walwalin adigu ma tihid qof la buriyo ee iyaga ka shalay doona inay waayaan qof adigoo kala waxaan hubaa inaa maalin maalmaha ka mid a aad furo doontid meel adiga gooni ku ah indhahaagana waa ku arki doontaa intay soo baxday garaashkii dib ugu soo laabane midkii booska ahaya wuxuu weydiinaa adiga shaqada soo ma kuu diidin maxaa u soo laabatay waxay ku dhaheen meeshan wax kale ma u imaan ee waxaan u imaaday inaan idinkaga mahad celiyo fursaddii aad isiiseen kadib midkii shaqaalaha ahay midkii booska ahay wuxuu ku dhahaa gabadhan xirfadeeda aad ay u sarraysaa ee waxaad u ogolaataa inayna la shaqayso wuxuu taagan yahay aniga waxba ma iga gelin xirfadeeda ee waxaad u sheegtaa inay meeshan isaga tagto ugu dambayn midkan go'aan uu qaadanaya midka booska wuxuu ku dhahaa haddii ay iyada burisay anigana waa baxay kadib midkan wuxuu go'aansanaya inuu shaqadiisa gebi ahaanba isaga tago waxay weydiinaysaa adiga maxaad samaysay shaqadaadana maxaa uga tagtay wuxuu ku dhahaa midkan shaqadiisa owala hore u necbay ee anigii adiga si wada jiraha meel u furanaynaa waqti yar kadib waa kuwaana iyagoo xariga ka wada jaraya meel ay si gooniya u leeyihiin muuqaalkan intaasoo ku ekaaya hadda halkaasoo gaarta leegnoosa